والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت كجدال إلهي بمهله waxaa maanta shalayna soo gaaray goordame dhalinyaradii nooga timi laascaano oo na soo gaarsiiyay gurmadka iyo raashinka isugu jiray oo dadku dhalinyaradu ay wadeen oo rabay runtii inay la qaybsadaan dhibta walaalada soo gaaray reer qarood waxay naga codsadeen maadaama ay xalad joogeen oo raashinkii noo wadeen oo dhalinyar ahaan noo yimaadeen waxay naga codsadeen inay xoogaa yar lacag deeq yar ay wadeen oo lacag ah oo inay dadka dhibta la qaybsadaan oo arkaan oo guriyihii nala booqdaan oo dhibta nala qaybsadaan xanuun nala arkaan marka waxay naga codsadeen dadka familiyadii waliba dhibtu aad ku saameysay inaan tagno hadda reerkan waxa way dadkii masiibadii ilaahay keenay ilaahay baan ugu mahadinaynaa ee ku dhacday waxay ka heshay meeshan toga kan ee biyuhu marayaan ilaahay xamdigi waan ku badbaadan naftooda wax ma aysan gaarin waan laga soo raray guriga kan la keenay agabka meesha ka muuqda waxa weeye agab waxa la soo gaarsiiyay shalay la soo gaarsiiyay buu ahaa oo awal waxoodii wuxuu naftoon baa baxsatay alxamdulillah marka dhibtayna la qaybsanayaan waxay u wadeen oo iyo salaantoodii iyo ka tacsiyeyntii si guud ay naga tacsiyenay walaalahaya bayna la qaybsanayaan caruurta yarka baan rabnaa wixii ilaahay ugu soo dhiibay oo dadka uga soo qaadeen oo walaalahooda dadku waa la soomeeyay maanta bishi barakaysan lagu jiro waxay rabaan inay khayrka kaga faa'iideystaan oo dadka la qaybsadaan xanuunka aad baan ka mahadcelinaa kuna soo dhawaada si wanaagsan nolosha shaqeysana insha Allah waan ka mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad aad baad mahadsantiin Rahmaan Rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo mahad koowaad u sugnaatay sida walaalkii ugu horeeyay sheegay maanta waxaan la joognaa hooyo Kaltuun Maxamuud Jaamac oo runtii musiibadii rabaaniga ahayd ay haleeshay saaka ayaan soo booqanay wax buuran maan wadin laakiin se wax walba waxa ka muhiimsan in dareenka la isla wadaago halkan waxaan ku taaganahay waa dhalinyaradii gurmadka gudidii la soo xulay ee laascaano laga soo xulay deeqdii soo qaaday waxaan rabnay in aanu qoys walba iyo xaalad walba ogaano wixii aanu tari karayno ogaalkayga dadka nagu soo dhiibeen inaanu gaarsiino waxaan rabnaa hooyo Kaltuun Maxamuud Jaamac inaanu deeq cadad kooban oo inaanu gaarsiino oo $260 uu soo diray walaalkay Farxaan Falaag Maxamed Cabdulle oo dalka Canada jooga khayr Allah siiyo baan leenahay hardan rabnaa inaan gaarsiino waxaan kale ummadda islaamka ka codsanaynaa maadaama ay dad dhibaato badan dhacday bishii barakeysan rabadaanta lagu jiro in khayrka aynu ka wada faa'iideysano hadda qoyskan waad arki karaysaan oo wax badan uma yaalaan oo hal furaash hal daqiiq qadiifad xaaladoodu aad bay u adagtahay in isaga laftigiisa laga soo qayb qaato oo aynu u kacno oo cid walba oo jilicsan gargaarka gaarsiino Allah idin barakeeyo waxaan leenahay hawshaas si weyn looga qayb qaato hadda ayaan la joognaa hooyo Kaltuun Maxamuud Jaamac aad oo maasantiin Farxaan runtii lacagaha uu soo diray wuxuu ka soo qaaday dad walaalkiis iyo dad fara badan oo isla asxaabihiisa ah ayuu ka soo ururiyay khayr Allah siiyo baan leenahay saaka ayaan gaarsiin doonaa waa maasantiin maama Kaltuun waa u tacsiyanaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa wax ka khayr badan inuu alle ugu bedelo walaalka Farxaan sadaqada la soo baxay oo soo ururiyay juhdiga galiyana ilaahay tabaaraka wa taala fi miisaan xasanaati Allah kaaga dhigo